السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبين وناكسنا أصحابي ميلكستو أتشوكتان وهبين نمو 4 خميس أي سو قليسو تاريخ دونا أي تاي صدن كجولاي سنة كالبكون يشاني لباتن هذا قضبضا إنو برنامج كعاوة إذن كوكسو قد بنينو وحاكم النغن دونا نتنياهو أو شيغي إن gargaarka la geynayo Gaza uu ogolaaday in dusha sare laga daadiyo. Haddaba maxay tahay sababta uu u doonayo dusha sare in laga daadiyo gargaarka? Waa tii barnaamijkeygii galabta aynu ku soo qaadanay odayaasha dhaqanka ee reer Gaza iyaguna inay diidanayeen dusha sare in laga daadiyo gargaarka. Haddaba meesha waxa ku jira ayaynu rabnaa barnaamijka inaynu ku ogaano. wixii laga qoray ayaynu barnaamijka arrinka idiin soo gudbin doonaa. Waxa soo kale aan barnaamijka idinkugu haynaa Israa'iil oo u hanjabtay Imaaraadka iyo Urdun askartoodii cirka ka daadinaysa raashinka. Haddaba maxaa dhacay sababta loogu hanjabayo maxay tahay? iyana warbixin baan idinkaga hayaa. Waxa soo kale barnaamijka aynu ku faahfaahin doonaa ergeyga Mareykanka u qaabilsan bariga dhexe Witkoff oo saacadaha soo socda Israa'iil ku wajahan ujeedada socdaalkiisu maxay tahay iyana barnaamijkan ku eegi doonaa. waxa soo kale barnaamijkan idinku hayaa Al-Qassam oo soo saartay war ay ku faahfaahinayso saacadihii la soo dhaafay wixii ay nagta ka saareen gudaha magaalada Gaza. wararkaas ayaynu caawa barnaamijkeena ku soo qaadanaynaa inta aan ku jirno warar cusub hadday soo kordhaan waan idin la soo wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeennimo waa habeennimo Arbaca oo Khamiis ay soo galayso. haddaba qodobka ugu horeeya waxaynu ka dhigaynaa dagaalka dhacay saacadihii la soo dhaafay Gaza khasaaraha loo geystay ciidanka Israa'iil oo ay muqaawamadu goor dhaweyd war ay ku faahfaahinayaan ay soo saareen. haddaba telefishinka Al Jazeera ayaa qoraya Al-Qassam waxay bartilmaameedsatay gaadiid dagaal oo ay wateen ciidanka Israa'iil deegaanka Khan Yunis waxaana la filayaa ayay yiraahdeen in halkaa uu ka dhashay dhimasho iyo dhaawac ay u geysteen ciidanka Israa'iil. haddaba warbixinta way sii socotay Al Jazeera goordhow lagu daabacay waxaa la leeyahay Kataa'ib Cizzadiin Al-Qassam garabka militariga Hamas ayaa waxay sheegeen in ay markaa heleen oo gudaha Gaza ay ku heleen ciidanka Israa'iil iyagoo ka dhigay kuwa dhintay iyo kuwa dhaawacmay. saacadihii la soo dhaafay weeraro kala duwan oo dhacay waxayna la beegsadeen aaliyaadka ciidanka Israa'iil ama gaadiidka dagaal ee ciidanka Israa'iil kuwaasoo ku sugnaa Khan Yunis koonfurta marinka Gaza. Al-Qassam waxay soo kala sheegtay saacadihii la soo dhaafay inay u suura galeen inay 3 miino oo waaweyn oo nooca barmiilka la yiraahdo ay ku qarxiyeen meel ay iskugu soo xoomeen qaar ka mid ah ciidanka Israa'iil iyo baabuurtii ay wateen koonfurta deegaanka la yiraahdo Al-Batn Al-Samin kaasoo ku yaala magaalada Khan Yunis waxaana la sheegay in halkaa uu ka dhashay dhimasho iyo dhaawac. marka warbixintan marka waxa soo saaraya muqaawamada waxay soo saareen caawa laakiin waxay leeyihiin dagaalku wuxuu dhacay saacadihii la soo dhaafay 24 ilaa 48 saac la soo dhaafay khasaarihii ugu weynaa oo ay soo ururiyeen ayay halkan ku soo gudbiyeen. marka ma jiro wax kale oo dhanka Israa'iil ka soo baxay oo tafaasiisha sheekadan ku saabsan. haddaba dhinacii dagaalada iyo wixii nagta laga saaray waa ka gudbaynaa. hadda marka waxaan galaynaa dhinacii gurmadka oo sheeko cajiib ay markaa ka jirto. barnaamijkan kii ka horeeyay galabta inta fiirsatay way soo daawadeen inta aan daawanna waan hubaa inay daawan doonaan. waxaynu ku soo qaadanay odayaasha dhaqanka reer Gaza oo sheegay inay doonayaan gargaarka inuu ka yimaado dhinaca dhulka macaabirta ama goobaha xuduudaha la furo baabuurta la soo geliyo. arrinkaas ayaynu doonaynaa ayay yiraahdeen. nimankii marka shir jaraa'id ay qabteen waatay halkaa ka hadleen arrinkaa waa soo gudbinay. ninkii Netanyahu ayaa isaguna goordhow hadlay cajiib waaye wuxuu leeyahay waxaan u sheegaynaa dowladaha gargaaraan keenaynaa leh waa inay dusha sare gargaarka ka daadiyaan. mawjeeda marka meesha waxbaa ku jira
marka wixii laga yiri iyo waa u tagi doonaa laakiin newska hadda soo dhacay haddaan idin la wadaago telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay Netanyahu wuxuu ku baaqayaa dowladaha caalamka inay gargaarka ay geenayaan Gaza dusha sare ay ka daadiyaan ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ay maxkamadda dambiyada caalamiga ay doonayso ayaa wuxuu sheegay in markaa loo baahan yahay in gargaarkaasi dusha sare laga daadiyo isagoo dhanka kale sheegay in ay ka hortagayaan xarakada muqaawamada islaamiga Hamas in gargaarka ay xaddo waaye meesha marka tafaasiil yar ayaa laga bixiyay waxa la yiraahdo odayaashu reasonka ama sida ay u diidayaan way sheegeen waxay yiraahdeen iyadoo gargaarka la furi karo xuduudaha baabuurtuna ay wax badan soo qaadi karaan maxaa diyaarado inta loo soo saaro alwaaxiyo wax lagu soo raray hadhow dadka xataa dhibaato u keenayaan hadiiba gargaarna la siinayo dhulkii ha laga soo geliyo yiraahdeen taa marka waa dood furan waayo oo macquula laakiin ninkan warkiisa wuxuu leeyahay xuduudaha way i xirnaanayaan gargaar inaa keentaan daarabti dusha sare ka daadi asaga marka ujeedo kale yaale gargaarka marka la daadinayo diyaarado drone iyo waxbay dirsanayaan dadka gargaarka urursanaya iyo waxaasay raadinayaan marka waxay isleeyihiin Hamas ayaa meesha imaanaysa gargaarka qaadanaysa markaas ilaalinayna gargaarka waa ilaalinayna sheekada marka waxa leeyahay Hamasku manin isagu nooc kala aha mise dadku kamid yahay shacabku kamid yahay Habaska labiska iyo waxan marka la soo qaadanayo dharkan ciidanka iyo waa marka fantasiyo la sameeyo laakiin marka kale dacaskiisu wato go'isha garabka u saaran qamiiskiisu la ordaya maxaa adiga marka ka garanaysaa laakiin lugooye ka wadana le dawladuhu qarash far badan uga baxay diyaaradaha soo qaadaya gargaarka daadinaya ciidanka way ku rafaadayaan marka waxaas ayaga daalayo ka wada wax nafla oo meeshii galayana male istiil cuna qabatayntii way u saaranta asaga gargaarna ma ahanay dheen wax diyaarad laga tuuray gargaar ma ah waaya haddana sheeko kala soo baxday imaaraadka iyo urdun iyo ayaa dusha sare gargaarka daadiyay iyadoo ingiriiska Spain iyo maaratay dawladahan kale Jarmalka ay kulli ay yiraahdeen dhinaca urdun aan soo marayna gargaarka anaguna dusha sare in laga daadiyo rabnaa gargaarkeen diyaaradaha marka waxay soo isticmaalayaan Jordan kuwaas soo qaaday gargaarka le Israa'iil marka waxay u hanjabtay imaaraadkii Israa'iil isku dhadhijinayay iyo kuwii urduniyiinta ahaa ee ciidamada cirka diyaaradaha waxbaan ka daadinaynaa la loo hanjabay tolo maxay halayeen aslada wax la yaab laha loogu hanjabay waliba oo adeega la yaabis maxaa la yiri waxaan aragnay yiraahdeen sawirro dusha sare Gaza laga qaaday diyaaradahan markay raashin ka ridayeen ayay sawirro ka qaadeen askarta saaran hayay ninkiis mar dambe sameeya waa laga joojinayaa shaqada uu wado dhan waxa dhan waa laga saaraya yaa idin dhahay dusha sare ka sawira magaalada saan u burburinay saan magaalada u galnay dadku way ka naxayaan markay arkaan yaa idin dhahay sawira ka waran waxa lagu haysto waxaas waay ayaditu soo marka sheeko la yaab la waaye telefishinka Al Jazeera ayaa goordhow qoray warbixin uu leeyahay Israa'iil waxay mamnuucday ciidanka cirka ee ka qayb galaya ciidamada macnaha daadinaya raashinka inay sawiraan burburka Gaza inay sawiraan ayaa laga hor istaagay haddaba warbixinta way sii socotay waxa leeyahay journaalka la yiraahdo Haaretz ayaa maanta Arbacada wuxuu qoray in Israa'iil ay mamnuucday ciidamada cirka ee ka qayb galaya daadinta cunooyinka gargaarka ah in markaa ay sawirro qaadaan kuwaasoo ku saabsan sida ay u burbursan tahay oo burburka baaxadda leh ay Israa'iil ugu geysatay marinka Gaza waxa loo hanjabay waxa la yiri wallahi waa la qabanayay askarigii lagu arko imaaraati iyo urdun iyo yaa idin dhahay sawira ka wara wax magaalada dusheeda wax ku daadinaysa sawir xataa ma ka qaadi kartid magaalada hal sawir ka qaado iska jir adiku magaalada adiku soo saan ma yeelan may illa arka marabno dusha sare anaga la ina joognaa rabnaa laakiin sawir inta laga qaado adduunka alla magaalada sida loo galay maxay ahayd in la yiraahdo marabno
كورما شيكاس شيكا والية سوما آد ولا يابدن عندما qodobka isaguna halkaas kaga gudbayna qodobka ugu dambeeya barnaamijka ayaan u gudbi doonaa ninkii Mareykanka u qaabilsanaa bariga dhexe Witkoff ayaa saacadaha soo socda Israa'iil tagi doona waliba Gaza ayuu tagi doonaa muxuu ka sameynayaa talow barnaamijkan ku soo qaadanayna